Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha iyo qaayaha loo kusoo dhawaada Higgs Technology. Anigana waxaan ahay Maxamed Xibs. Maanta hadduu alla idmo cashirka aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa sida loo sameeyo billboard, yacni boorarka wax lagu xayeysiisto ee laamiyada lagu dhajiyo. Even muhiim ma ahan inaad dhahdid billboard waa boorarka lagu dhajiyo laamiyada. Haddaa rabtid waxaad dhihi kartaa waxaan sameynaynaa saaka sida loo sameeyo boor wuxuu raba ha noqdo. Balse inta aanan bilaabin cashirkan fadlan subscribe saar haddii cashirkan dhammaadkiisa uu ku qanciyana like iyo times up taabo sababta oo ah like waa free, commentiskuna waa free, sidoo kalena subscribe waa free, lacag lagama rabo. Anigana cashirka aan ku siinayo waa free, marka maba jirto sababa cashirka inta u fiirsatid channelkana aga gudub. kusoo dhawaada mar kale Higgs Technology. Maanta waxaan isticmaalaynaa hadduu alla idmo Adobe Illustrator. Aan soo kicino Adobe Illustrator. Adobe Illustrator markaad soo kicisid fadlan tag file kadibna tag new amase control n keyboardkaaga adoo isticmaalaysid. Kadib waxaan u bixinayaa billboard oo ah maanta missionkeyga. Kadib halkan waxaan ku dhaafayaa hal inuu ahaado kow uu noqonayaa, halkan ayaa imaanayaa. Inta waxaan ka dhigayaa pixel size-ka cabirkiisa. Kadib waxaan leeyahay waxaa iga dhigtaa 1466. Cabirka sida adigu u dhiganaysid adiga ayay ku jirtaa. Muhiimadda waxaa waa inaad design sameysid oo qurux badan. Cabirkana qofka customer-ka ayuu ku xiran yahay. Laakiin aniga cabirka aan sameynayo aniga ayuu u xiran yahay. Kadib hoostan imaw height-ga amase dhirirka sare ama joogga waxa u taqaanidba waxaa weeyaan 816 ayaan ka dhiganayaa. Kadib waxaan leeyahay okay. Markay shaashadan cad kuu soo baxdo shaqada hadda ayaan cabayaa. Marka koowaad waxaa muhiim ah inaad hesho maadaama boor aad sameynaysid sawirada boorkas aad u tala gashay. Aniga already waan soo dejiyay waxa iigu jiraan computerkayga. Marka koowaad waxaan leeyahay file kadibna waxaan leeyahay replace. Kadibna waxaan rabaa inaan sawirka koowaad soo geliyo. Sawirka koowaad markaan sidaan u soo geliyo waxaa sameynayaa design-kayga iigu xiga aniga waxaan raacayaa design-ka aniga jeclahay oo kale. Adigana design-ka aad rabtid ayaa ka dhigaysaa laakiin muhiimadda waxaa waa in qaabka aad barid. Okay. Kadib waxaan tegayaa halkan waxaan dooranayaa paint tool. Halkan ayaa imaanayaa paint toolka. Geeskas ayaa kasoo bilaabayaa click. Kadib hoostan ayaa imaanayaa. Hoos ayaa tegayaa click ayaan siinayaa. Mar kale ayaa meeshaydii ku noqonayaa cabirka. Kadib waxaan sameynayaa halkaas ayaan ku dhufanayaa. Kadib geeska. Okay. Sida u jeedaan geesaha ayuu madow ka yahay, dhexdana white ayuu ka yahay. Laakiin halkan ayaan ka bedelayaa meeshan geeska markaad tagtid waxaa u jeedaan laba color white iyo madow. Okay. So waxaan rabaa inaan meeshas geeska taagto amase swap wax loo midkii kor geey midka hoosena hoos geey. Kadib qaybtan hoose ayaa sii tagayaa white-ka waxaan dooranayaa non color. Okay. Intaas markaan sameeyo waxaan tegayaa halkan shapes-ka waxaan soo daabanayaa rectangle tool. Kadib halkan ayaa rectangle tool soo dhigayaa ilaa waxaa keenayaa geeskas. Okay. Kadib waxaan dooranayaa direct selection-ka geeskas ayaa tegayaa. Kadib sidaas ayaa u wadayaa ilaa xariiqta hadii aan sameeyo ka gaabo. Okay. Markaas qaybtan black-ga waxaan rabaa inaan midabka ka bedelo. Waxaan dooranayaa for example noocan midabkan oo kale. Okay. Inta markaan sameeyo waxaan rabaa ayadana inaan sameeyo shape-kan ayaa dooranayaa. Kadib waxaan dooranayaa ellipse tool. Ellipse tool markaad doorto halkan ayaa waxaan soo dhigayaa shape ellipse tool ah. Waxaan rabaa si fudud inaan ku sameeyo design-ka. Ellipse tool-ka markaan shape-ka saan u soo dhigo waxaan dooranayaa meeshan stroke ah. Kadib black ayaan dooranayaa. Kadib waxaan kordhinayaa color-kan stroke. Okay. Kadib wax yar ayaa sidaan u soo sikinayaa. Shape-kan waa duplicate gareynayaa waa copy gareyn karaa. Waxaan ku copy karaa Ctrl C Ctrl V inaan dhaho amase inaan click inta ku siiyo
alt keyboardkayga qabto kadibna aan soo jiido aan meesha aan rabo aan dhigo. Kadib waan ka yareynayaa kaas cabir ahaan sidaan ayaan u dhigayaa meeshan. Okay, intaas markaan sameeyo midka koowaad shape koowaad aan ku dhufanayaa. Halkan ayaa imaanaya qaybta midig ee computerka amase gacantaada bidix. Meesha ugu hooseysa waxaa ku sawiran waxa la dhaho draw inside amase waxaad taabanaysaa shift plus D. Kadib kilig ayaa ku siinaysaa afarta geesood. Markay sidaas noqoto calaamad waxaad tagaysaa file kadibna waxaad tagaysaa replace. Kadib waxaad tagaysaa meesha uu ku yaalo sawirka aad rabtid inaad ku dhexdaysid. Kadib halkii ayaa tagayaa aniga sawirka isticmaali rabana waa sawirkan oo kale. Kadib sawirka markuu soo galo waa weyneynayaa. Kadib halkaas ayaa ku aadinayaa. Okay, sawirka saas markaan ku sameeyo kan hoose asna uu imaanayaa. Waxaan leeyahay sidii oo kale stepkii aan raacayaa. Kadib file replace ayaan leeyahay. Kadib waxaan soo dooranayaa kuwan amase caawitaanka. Waxaa la ekeysiinayaa shape-ka. Okay, tanna sidii oo kale ayaan yeelayaa. Muhiim maahan aniga sawirka kalarka iyo midabka aan ka dhiganayo, laakiin muhiim waxaa adiga qaabka ka dhiganaysid oo qofka uu dooranayo. Okay, waxa uu ka kooban yahay sawirkaygan oo dhan waxaa weeyaan fish burger, cabitaan natural ah iyo chicken. Okay, waxaan rabaa marka inaan wax yar sameeyo. Waxaan yarkoo sameeyo waxaa waa inaan hoos soo dejiyo kan kadibna aan tago halkan kadibna aan ku qoro maqaaxida magaceeda. Maqaaxidana waxaa u bixinayaa for example hay dhaafin. Then waa weyneynayaa cabirka farta. Kadib fartana waa ka bedelayaa. Kadib fold ayaa ka dhigayaa farta. Qaybna waxaan ka dhigayaa rectangle. Kadib midabka ayaa ka bedelayaa. Kadib kalarka markaa qoraalka aad ka bedeshid halkaas ayaa ku dhaafaysaa qaybtan. Waxaa fiicnaan lahayd inaad logo u sameysid haddii aad logo u haysid, laakiin haddaad logo u haynin muhiim maahan inaad halkaas aadid. Waan gartay. Kadib maxaa iigu xigo? Kadib waxaa kuugu xiga wax yar oo ah shape kale inaan inta soo qaado inta soo dhigo anigoo qurux aga dhigaya. Midabkiisana ka dhiga white. Stroke qaybta u sameeya oo black aga dhiga, dhaxaas ku soo aadi. Kadibna wax ayaa ku qorayaa maaha inaan wax sameynayo. Waxaana ku qorayaa oo micnaheeda aad kala jeedo haddii aad iibsatid laba shay 40% lacagta ayaa laga dhaafaya ayaa ku qorayaa. Okay, sidaas marka halkaas ku sameeyo maxaa ii xiga? Waxaa ii xiga halkan ama dhinacan kale ayaan rabaa inaan wax ku qoro. Qoraalkana mataqaanaa sida uu qoraysid waxyaabaha aad ku qoraysid qofka shirkadda leh ama maqaaxida leh ku xiran tahay. Halkan shay baa ka sameynayaa. Shape-kan sidaan u dhigo geeskaas ayaa ka qabanayaa camal ayaa ka dhigayaa. Kadib kalarka ayaa ka bedelayaa for example black ayaa ka dhigayaa. Sida markaa uu sameeyo waxaa sameynayaa waxaa ku qorayaa kab soo qaad menu ayaa ku qorayaa. Kadib mid kasta iyo qiimihiisa ayaa sameynaya intaas oo dhigaya. Cashir waxaa sameynay oo menu sida loo sameeyo ah maqaaxiyaha waana soo dhignay page-keena. Waxaan soo dhigi doonaa description ama meeshan qaybta kore ayaa soo dhigi doonaa. Meeshaas ayaa ka fiirsan doonaa sida menu-ga loo sameeyo. Aniga laakiin hadda waa soo gashanaya. After that markaa menu-gaaga soo gashatid oo menu-gaaga inta soo dhigatid menu wax ula jeedaa meesha qiimaha ay ku qoran yihiin oo kale. It's not important inaa menu iyo af Soomaali inaad ku qortid iyo af English inaad ku qortid ayaga u taalaa qofka oo iska leh maqaaxida asaga dalbanayo badanaa, laakiin waxa dalka lagu gadayo af Soomaaliga ku qurux badan. Kadib waxaa sameynayaa
meeshan ayaa shape soo dhigaya. Shapekas waxa uu talagalay contactiga iyo waxaas camal inaa ku qoro. haddii maqaaxida delivery leedahayna ayadana inaa xustid ayaa ku fiican. Then sidaas ayaa u sameynaya. Geeskan ayaa shapeka markaa sidaan u dhahayo sidaas asagoo shape waa toosan yahay kasoo qaad. Markuu shapeka toosan yahay geeskas ayaa waxaa soo dooranaysaa waxa la dhaho direct tool, kadib geeskas ayaa ku dhufanaysaa. Kadib falaarta ayaa isticmaalaysaa oo keyboardka ayaa geeska u riixaysaa dhanka midig ayaa u jiidaysaa. taas dhib ma lahan taasna. kadib waxaa sameynaysaa colorka ayaa ka bedelaysaa. colorka ama eyedrop aga bedelo ama se aga bedelo waxa la dhaho click inta ku siisid korkan aad meesha colorka laga soo bedelo isku mid waa. Okay, then waxaa sameynaysaa waxa la dhaho waxa ugu qoraysaa haddii Facebook uu leeyahay, haddii oo mataqaanaa wax gaabaad kale ay leeyihiin meeshan ayaa ku qoraya. For example Facebook ay leedahay maqaaxidan colorka aka bedelo farta white iga dhig, texta soo doortay, kadib halkaan imaanaysaa f ku qoran soo qaad. f waxa ula jeeda inaa ka dhigo Facebook type confer lahaa igu jirto oo Facebook icon iska sameyso like this ka dhigayso. Okay, waxaa sameynaa marka Facebookan waxaa la dhahaa hay dhaafina la dhahaa kasoo qaad. Okay, farta waxaa waa yareynaya waa weyn zaid u weyn tahay. kadib waxaa ka dhigayaa inay ka bilaabato right left inay farta ka bilaabato ka dhigayaa. qaybtaana farta waa bedelaya, waxaa ka dhigayaa farta centuries far la dhaho oo igu jirto ayaa dooranaya century. Okay, hay dhaafin restaurant. Okay, hay dhaafin Facebook geeda waaye maqaaxida. kadib waxaa soo qaadanaya halkan toolkan shape-ka markaa tago meeshan line ku jiro, line ka soo qaadanaya inta soo dhigaya straightly halkaas ayaa soo dhigaya, dhexda ku aadinaya. meeshan stroke line kala doorta mar walba. line daa sameynaysa stroke dooro isaga perfect ku ah meesha colorka fieldiga dhexda ka dooran lahayd. Okay, kadib waxaa inta kusii qoraya kaba soo qaad phone number ayaa ku qoraya +252 eta adaa taqaan saa u qoraysa no. kadib waa saxaysaa. Okay, sidaas markaa sameysid marka maxaa ku dhiman hay dhaafi maqaaxidan wax yaraa ku noqonayaa meeshan sidaas ayaa u leeyahay. kadib waa isku dhaweynayaa, waxaa isticmaalayaa waxa la dhaho halkaana waxa ku jirto waxa la dhaho character. kadib inta laga isticmaalo iskaga dhaweeyaa isku dhaweey. Okay, waxaa usoo gelinayaa shape oo qaanda qaandii fargeeto. Okay, soo gelinayaa waa soo dejiyay file ayaan leeyahay replace ayaan leeyahay. kadib saas soo gelinaa. kadib meesha uu adiga yaala dooranaya is muhiim badan ii ahaan hadda laakiin shape-kana karaa bis ag goosanaya. si ag goosanaya meeshan kor iska geenaya. waxaa ku sameynayaa waxa la dhaho tracking image tracking. marka image tracking ku sameysid process yar oo mara. image tracking markuu dhameeyo waxaa leedahay extend, kadib waxaa leedahay right click, kadibna ungroup. kadib waxaa soo qaadanaysaa qaybtan dhexe oo shapeska inta dhiganaysaa, inta kale highlight iska saaraya waan iska delete. kadib waa soo qaadanayaa halahan qurxin ay tahay oo kaliya iyo looga in loo helo maqaaxida oo sideeda aan ku dhaafin. maqaaxida qofka la saar loogada laga rabo inuu ka soo toos haysanina lacag ka qaadaysa Soomaan. Okay, highlight garay kadibna hay dhaafin restaurant saas u dhamaatay. sidaan ayuu noqonayaa boorkeeda. waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iiday. cashirka ku xiga insha Allah ayaa noo balana iyo adigoo aan ila dhaafin subscribe-ka. Thank you very much.